jacaylku beer un ku tusaaleeya jacaylku in la waardeeyo u baahan yahay jacaylka in la waraabiyo u baahan yahay jacaylku cadow badan buu leeyahay in laga oodo u baahan yahay jacaylku fiiri meeqa biyo adduunka laga isticmaalaa biyaha tuubada biyaha cirka biyaha badda biyaha ceelasha weliga ma maqashay biyaha jacaylka hada xaqiiqo waa sax biyo waxa jir la yiraahdo maa'ul hub warma maqashay idinka dhalinyaro waa inuu bari idinka maa'ul hub baa jira biyaha jacaylka maxaa kamida afiqa kalsoonida kamida in la abuuro waxa rajaynayaa lamaana kasto imaqli doona in ay qodobkaas soo nooleeyaan oo ay kalsoonidii dib u soo celiyaan oo gabadhu indhaheedu uu ninka ku weynaado oo gabadhu wiilku ama ninku indhihiisu ay gabadha ku weynaadaan oo ninku u arko hal tusaale siinaya maalan odaygii baa soo galay gurigu soo galay waaba duhurkii weeye qadadii buu ka yimid wuxuu ka yimid shaqadii uu weysaystayba wuxuu tukaday 2 ragcadood islaantu kuma ayna aqoon jirin ninku inuu saacada 2 ragcadood tukado way weydiisay waxay tiri saacadan 2 inayso maxay yihiin markaasuu wuxuu yiri markaan ku eegay oo ku fiiriyay quruxdaada iyo sharaftaada iyo caruurtaad ii dhashay quruxdooda iyo gaarinimadaada ayaa nicmadaas ilaahay shukri aan ku shukrinaya daraadeed baa 2 ragcadood tukaday waxaad ii sheegtaan gabadha aad intaa ku dhahdo maxay dareemaysaa yaa ii sheegi kara ya gabadhi ka dhig hadana arintana gabadhi ka dhig ninkiiba ku yiri maxaad u tukanaysaa ilaahayga igu ka arzuqay ya inta nin adduunka badan alla ilaahay jecela inuu ilaahay jecelay waxaan ku gartay inta nin booraba joogta ya adiga uu ilaahay ka xul alla ilaahay jecela ma idin tahay ninka muxuu sameeynaya soo sidii barafka uma dhalaalayo inta reeraheena naga xigta waa inta macnaheedu waa maxay fiqa iyo kalsooni tusaale kala qabsada odaygii baan hadana tusaale ku soo qabanaya shaqadu tagay maanta markuu meelaha joogo oo kaasi maqan yahay 2 saac oo kaasi maqan yahay yo halo soo yiri oo soo wacay ha habibi salaam alaykum wa alaykum salaam haye maxaad maanta jira wallahi waxaan doonayaa maanta inaan shaqada ka soo tago oo maxaa dhacay mid xanuunsan tahay ma yaada ku xiisay erayo waxa hubaala intaas iga tijaabiya waxa hubaala inaad guriga aad ku soo noqon oo ugu soo noqon qofkaad ka tagtay qof aan ahayn gurigaad ka tagtay guri aan ahayn cuntada shalay cunto aan ahayn xabada way ka diyaar galoobayaan xabada kale noo qari maya adu furaad siiyay sheekh wuxuu yiri inta hadan hal maalin ku dhaw maalinta dambe maya adu طريقه kale isticmaalaysa laakiin hal furu baan ku siinaya taa kali ama wal aaqilu yafamu bil ish wa tusaalihi wi sida daraadeed tusaalooyinku wax badan bay faa'iideeyaan odaygii baa soo galay oo aad u daalan oo maanta soo shaqeynayay Soomaa gabadhii u yimid oo aad u daalan oo maanta caruurtii daba ordaysay oo qada u kari oo u qabe oo quraanki u dir oo ka soo qaad oo dharkooda diyaari oo hadana odaygii si cuntadiisa diyaari oo dharkiisa diyaari ya laba daalan baa isu yimid warsaas ma waxa laga yaabaa gabadha inay leedahay wallahi gabadh dariskeeda u wareegaysa mugti abaayay aniga wallahi ninku ku rafaasanaho waxba iima qabto shaqadaas ka imaada wuu seexdaa saas ma maxaa keenaya laba daalka waa in la iskaga garaaba ka war haduu odayga markuu soo galo ay ku dhahdo gabadhii soo dhawow annaga noo soo shaqeynaysi maanta dhan qorraxdaad aragtay adiga kugu dhacday
ilaahay ha noo kaa daayo kabaha maartay kabaha musqusha lagu galo ay xagga u sii jeedayso musqusha soo sii gashado shukumaanka u sii dhigto intuu soo iisoo qabayso cunto kuleyl iyo qabow u dhaxaysa oo cusbadu ku yarta inana waxa moogta waxad walwalaaqdi ma aha sama cunto kuleyl iyo qabow u dhaxaysa aad markaa u soo dhigto kadibna aad dhahdo war baan ku hayaa aye maanta ana ku cazuumay waan ku cazuumay waliga adu ma cazuumtay ninkaaga waliga ma cazuumtay sama saasa la rabaa wallahi gabdhaha fariidin way wiilasha weydiinaya idinku waliga gabdhiina ma cazuumteen ma tiri maanta ana ii cazuuman tahay sama hada iskiga dadaala saas ma saas weeye marka anaad maanta ii cazuuman tahay sida daraadeed gabar baa ninkeedii bay qiso yar baa idin sheegaya halka ku saabsan gabar baa isoo wacday waxay igu tiri sheekhow ninkii baan kala taaganahay maxaad igula talin lahayd anna waan jeclahay igu tiri laakiin ninkii xoogaa waxaad moodaa maalmahan sibuu iga sii jeedaa waxaan ku idhi waxaad yeeshaa qolka jiifka waxaad yeelaysaa waxaad ka dhigtaa horta aroos run ah ubax hadduu noqdo gogosha oo alaabta lagu dadaadiyo waa taqaanaa sooma gogosha alaabta lagu dadaadiyo barfuuno hor leh adigu guriga horta waxaad ka dhigtaa guri aroos oo nalkan cad ka bedel baan idhi nal cad baan kugu rakiban horta nalka cad ka bedel nal cagaaran horta waa inaad ku xidhaa ninka markii la daaro uu guriga isbedelayo war waa la faham sooma kadibna cunto cajiiba u samee adiguna labiso qolka jiifkan ayuusan gelin markuu imaaday qolka yar maanta dharka iskaga bedelay qolka jiifka u xayisi waxda ma qolka markuu maxaa maanta qolka dhacay ku dhacay qolkii markuu galay wuxuu arkay qolkii oo la yaab leh carafta iyo quruxda iyo wixii la kala bedelay ninkii nimanku waa gabdho nimanku waa masaakiin runtaan idin sheegaya ninkaad intaa ku samaysaan waa sixirteen waxa la asixru halal ma maqasheen nimanku waa markiiba ninkii gabadhi hab Allah ma waxan maanad ii samays oo waxan maana iskale oo gurigan quruxda badan maana iskale oy gaadhoday marka waxa la rabaa noloshu waa sir waxyaabaha fiqada iyo kalsoonidu ay ku imaanayso waa muhiim qodobkaasi muxuu ahaa hada u dambeeyay muxuu ahaa kalsooni Soomaaliyeed wa inaan guryaheena wa inaan kalsooni ka shaqeyna bi idin tabaaraka wa taala waxaan rabaa inaan idin sheego kalsoonida aanu soo sheegnay waxay leedahay thimar iyo midho laga gurto yaa guranaya caruurteena kalsoonida lamaanaha thimar bay leedahay midhay leedahay natiijay leedahay natiijada waxay ka muuqanaysaa wajiyada caruurteena farxadda caruurteena kalsoonida caruurteena ay ka muuqanaysaa si fiican u dhageysta tan cagsigeeda way imaan doontaayo haddii mar guriga buuq iyo qayle iyo sawaxan ka jiro caruurtu nooc kale marka u ekaanayaan taas marka waa qodob dhaxtaar insha Allah tabaaraka wa taala haddii la yiraahdo qodob kale fiiriya تشابه الأفكار والقيم والعادات إلى حد ما بمعنى ما حلقة وضع لبدا قفة لمانها مدام لبا مسكح أو كلا الدول إليهين لبا قيسنا أي كسو كلا كورين لبا عادو إيا نقلنا خاص أنا أي كلا ليهين انت أوذا ولا اسكسو دوي مؤكتي خير فربلا وحاكا لقية محاي اسم فهمينا نك ما فهمتوا نك اسم فهمينا قبلنا اسم فهمينا ولا فهمتوا مركز هيري قفك وقف بني آدم سوماها وقف بني آدم أفكار بوليه أدوكنا أفكار بالله قيم خاصة بالله هاي لابو عادات يقاب نقنات كسو كرت حلقة يابا ننكو إنو كسو كوري قوري بدخ إيو برواقة إيو gabadha waxa laga yaabaa inay faqri ku soo kortay saasaba عكس كدغو غبدي با waxay ku soo kortay maxay barwaaqo
iyo xoolo iyo aabaheed iyo waalidkeed waxa weeyaan ninkana wuxuu ku soo koray faqri buu ku soo koray labadiiba calaf la isku daray labo tusaale kale gabadhii waa gabadh dictora ah waa PhD wiilkina waa an alif maxaa la yiraahdaa maxaa la jiray tusaale oo kale eber may an alif baad baan rabaa la yaktub wala yaqra labada qof ma kala duwan mise ma kala duwano okay gabadhii waa 17 jir odaygiina waa 50 jir ma kala duwan mise ma gudano ama gabadha 50 geeya gabadha 50 jir wiilkuna waa 18 jir waayahay ma ogolo moogta gabadha waxaas kii kale way ogol yihiin laakiin ma ogolo waxaydan ku diidaynin haweenaydu markay 40 gaadho ilaa 50 sano waa marka ugu qiimo badan nolol warka ogaada hoos hayso dhigana nimanka maali dhaweeyda waan la soo dardaar goday baan la soo dardaarmay jijigan la soo dardaarmay waxaan ku yiri war gabdhaha markay 40 joogaan bayba noloshu ka u noqotay markay 40 jiraan oo islaamta aad ka dhaqaaqaysaan gabadh yar oo 7 jir aadaysaan war dulmiga iska daaya qoon ama cadli u sameeya ama cadaalad u sameeya oo cadli u sameeya hadii kala aakhirada dhinac u socdo iimaanaysa hadii kala maamay aakhirada dhinac u socdo iimaanaysa cadaalad baa laga rabaa konton jir haday tahay nin bay u baahantay soma konton jir haday u baahantay wehel bay u baahantay konton jir haday tahay dhaqan bay u baahantay war saas ma marka konton bay gaadhay iyo 40 bay gaadhay gabadh yar baan guursan ayadina waan ka tagi aakhira xageed aadi war bal fa marka taa rag si goona ugu socota la socdo waayahay dadkii fawaariq baa jira marka dadku way kala duwan yihiin afkaartooda kala duwan gabadh baa waxay leedahay sheekhow ninkayga ma tukaday maxaan sameeyaa samartan sheekhow ninkayga marmar buu tukadaa salaada ku karle maxaan sameeyaa fawaariqda noocana oo mar aqeedo noqonays mar akhlaaq noqonays oo ninkii ma taqana mukhadiraad buu isticmaalaya ninka gabadha waa gabadh caabidada oo taqiyada oo muhajjabada oo qiimo badan ninkana mukhadiraad buu isticmaalaya way kala duwan yihiin fawaariq fara badan baa jira arrinkaasi hadduu dhaco waxa loo baahan yahay in la isku soo dhaweeyo inta awooda Soomaa reerku inuu iska duma maaha laakiin waa in la isku soo dhaweeyo wixii caadada iyo taqaan hal qisa idin sheegaya xagga ku saabsan caadaadka dhaqamada kala duwan nimba wuxuu igu yiri saaxiibo aan nahay garbaan galay maalin dhaweey wiil Soomaaliyeed iyo gabadh China indha yar gartood baan galay meeshuna waa China la socdaa waxa lagu yiri buu yiri oo kaale gartan gal markaan reerkii wareysanay gabadhii waxay tiri ninkii bay ka dacwoonaysaa waxay leedahay ninkani aniga hooyo Kirishtaan ay dhashay way ii diiday nin madow oo Afrika ka yimid iska daabay igu tiri waan diiday markii dambe waa iska guursaday way islaamtay markaa garta hadda way islaamtay kadibna hooyadii baa nacsuutay hooyadii waxay samaysay qof la casuumo wixii loo sameyn lahaa China wixii masas ahaa iyo wixii dabaqalooc ahaa iyo wixii dixiri ahaa yaa la isu keenay ilaa waaba casuumaada adduunka qofka la casuumo ugu dambeeyo ninkii markuu soo arkay musqushu ku carimatay isla gabadhi marka waxay tiri ninkan laga furo hooyaday cuntaday karisay oo kharashku kaga baxay ninka maanta ka bantagay xaraam bigi bal idinku gartaa naqa waayahay waa nin Soomaali iyo gabadh indha yara sida daraadee sodohdu inay sodohda fahmaysaa fiican Soomaa sodogu inuu sodoga fahmaa fiican Soomaa dad canjeera ku qureecda ya iyo dad masas ku qureecada isku mid ba marka caadaadku marka qaarkood waxay leeyihiin khatarteeda ay leeyihiin hala la socdo insha Allah tabaaraka wa taala hadii alla yiraahdo bushaaro haddii safar loo gali jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga
haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra